Amazon bahda badso bulshooyinka Soomaaliyeed ee joogaanba halkan waxaan idinku soo jeedinayaa dhowr arrimood oo uu caan ku yahay ninka la yiraahdo Raago Ugaas marka ugu horeysa waxaan ka hadlaynaa waxa weeye buugga Tixi Tiraab xagee ka timid waa buugga weeye Tixi Tiraab kalmadda Tixi Tiraab waxa bixiyay Raago Ugaas waxaana lagu soo ururiyay maansooyinkiisii iyo taariikhdiisii baa lagu soo ururiyay marka aynu dhowr qodob u kala qaadno Raago Ugaas kuma waa Raago Ugaas marka ugu horeysa Raago wuxuu ahaa Raago Ugaas waxa uu ahaa taariikh fara badan buu ku leeyahay sooyaalka Soomaalida intaynu ognahay Raago Ugaas wuxuu dhashay 1840 buu dhashay Raago Ugaas 1840 taariikhda sida la xusayo wuxuu ku dhashay Raago Ugaas toga Sasabane ee gobolka Jarar deegaanka Ogaadeniya Raage dhowr siyaabood buu wuxuu ku leeyahay markii ugu horeysay maqlo wuxuu ahaa markaan dhiganayay dugsiga dhaxan u baranayay Soomaaliya gabaygii ugu caansanayeen maqlay Soomaalida wada garanayso wuxuu ahaa aleebnimo albaabada xiran oo wada saxday onka diiray oo gaamo roob alif manaadeed iideed bixibaa libaxman naboodaya ilaa iyo intaan gabaygaa maqlay Raage waxaan ku hayay in aan bal waxa uu Raaga ahaa aan wax badan ka barto wuxuu ka dhashay qoys power leh waa ina Ugaas Raaga waa ina Ugaas warfaa Faarax Samatar hooyadiina waxaa la oran jiray Ceebla Qodax Xuseen Faarax sidoo kale uurkiibu ku Raagay that's why uu magaca u qaatay Raago Ugaas Raage nimanka caalamka soo maray wuxuu ahaa ina Ugaas markiisii hore nimanka caalamka soo maray magaca leh waxay isku mid ahaayeen oo lagu xusaa Camar Laqays ninka la yiraahdo Ingiriisku markay Raago wax ka qorayeen waxay yiraahdeen son of the power wiilkii awoodda ama wiilkii hogaamiyaha waayo aabihiiba wuxuu ahaa raggii ugu caansanaa ugu awoodda badnaa deegaanka ka soo jeedo ina wuxuu ahaa ina Ugaas buu ahaa ina Ugaas oo wada garanaynaa nin dagaalyahanna uu ahaa nin aftahano abqariyana uu ahaa Camar Laqaysna sidaas oo kale in aftahano abqariyana uu ahaa ina baawarna uu ahaa oo nin baawar ka soo jeedana uu ahaa Raaga marka muxuu caan ku yahay dhowr siyaabood buu Raaga caan ku yahay dagaalkii isaga iyo Faarax Wiilwaal dhex maray Faarax Wiilwaal dagaalkii ku saabsanaa gabadha Soomaalidu waxay xustaa dadka jacaylka ka hadlaa inay yihiin cilmi boodhar bay ka bilaabataa taariikhda Soomaalida jacaylka xusaysa laakiin taariikhda jacaylka ee xusaysa ee Soomaalidu waxay ka bilaabatay Raago Ugaas ay ka bilaabatay waayo marka uu ka hadlayo taariikhda isaga iyo Faarax Wiilwaal dhex maray de gabadha uu jeclaa waxay ahayd gabadhii loo doonay Raago Ugaas loo doonay bay ahayd xujooyinka lagu xidhay kadibna Faarax Wiilwaal guursaday arrintii ugu qisada dheereed ee Soomaalidu ay ka sheekayso ay dhex martay geedkii ay ku shaxeen Raago Ugaas iyo Faarax Wiilwaal ee magaalada Jigjiga ku yaala geedka horta waa fadhiisto waa xusay xagayga mutay nasiib baan u yeeshay inaan geedka arko Raage dhalinyarnimadiisii wuxuu tagay magaalada yar la yiraahdo ayuu wuxuu u doontay inuu diin barto muddo kadib markuu muddo joogay ayaa Raage waxaa ka go'ay jicsinkii baa ka go'ay jicsigu waa waxa uu qofku qooto inta uu ku jiro aqoonta waxbarashada boardingka ama safarka sahayda uu qaato markay ka go'do ayaa Raaga waxaa ka go'ay wixii uu qarshiyaad haystay ama wixii uu cunto haystay wuxuu fariin soo faray
حر سؤال سيد ديجان كأوكسونا ريركود فريق مصافرة وحولي شنت صلاة اسكويس أيام كتب كذا شنت صلاة اسكويسو أيام كتب كذا شنت صلاة اسكويس كتب كذا كتب كل هذا ظروف بجت ظروف بكتة أبنتها ظروفتي كنتي حتى وقادن هركي بعمر شيء ودقي بدوجي أبي مركو فرنتي هلاي أيو وحكوسي دي بس هاي شوك سبعة صدق عد أو كم بسا صدق عد أو كم بسا أيو سي دي به مركزو حكويني فرين بصيفر الراعي وحويني بلغوا بوحة بشروا واسطا بلغوا بوحة بشروا واسطا بلغوا بوحة حرتي فرينت السيدية تدكي ماسج كاودي مركي جيك السوس اللي هي لفتو دي بس حيد وحكسي النقدينو عدكي يصوبكي بي وحكسي تابتين لكن ما يفهم الماسج كي سيدان وحوي هاي إنو كهاليو بلغوا بوحة بشروا واسطا واسطا عدنا مشو كجرتا بلغوا بوحة حراغو ده هالكا كلا سعودي وكو حكوك هنا ماسج بيعي حرتي وحبي كتابتين alaabtii loo soo dhiibay cadkii iyo subagii raagana markuu ogaaday arrin sida ay u dhacday wuu cafiyay raaga wuxuu ahaa nin aqoon xigmad waayo aragnimo badan leh wuxuu socdaalo badan ku maray dhul fara badan oo uu ka kororsaday aqoon waxaana maansada laga dhex ogaanaya aqoontii uu ka kororsaday safaradii raaga waxa ay maansadiisu noqotay mid dowga u sii ifisay gabayadii ka dambeeyay oo dhan sayid maxamed baa yidhi gabayga geed baxay buu ahaa guntiisa waxaa rujistay ina warfaa'ilow laamihiisa waaweyna waxaa kala qaatay aniga iyo nuur dhegay inta kalena caleemihii naga daatay bay kuranayeen inta kalena caleemihii naga daatay ayay kurteen waa halka uu ka soo bilaabay maansooyinka raagowgaas waxaa loogu tegayaa mahmaha murtiyo dhoolatus aftahanimo waa kii gabay ku goodinayay ku yidhi wuxuu yidhi baqal luga ka dheeree fardana bederma baqal luga ka dheeree fardana bederma gaadhsiiyo waa kii hadala lahaa قب دافع بي لبا قبيل قرن كويداي واكيد مركل لها ميل aan laga rabin indaha lama sii raaco sidoo kale raagi waakii hadalka labada dhuumood maro inoo bayaashay hadalka labada dhuumood maro raagi waakii marka labada si inoo bayaashay oo maxay tahay labada dhuumood waate iyo tiraab hadal waate iyo tiraab ama waate ama tiraab رايو وضوءها من كربير دقاليهن أفتهن مانسيهن أقويهن وحبا هل كامر كي بريسي ممكن انت جوجد رايو وغا سوحا وها نبا نترتبي رايو وغاس وضوءها فارح والوالقوها فارح والوال قبل كهر منسوي سوبر جرين هودا دقال مانسيد بقى كدحيي فارح والوال يراغوغاس وايو waxaad ka dhex ogaanaysaa markii raaga gabadha doonay xujooyinkii lagu xiray uu ku maqnaa wuxuu ogaa waxay yimi meeshii farax walwalo gabadhii doonaya markii arrinta loo sheegay wuu gartay ninka gabadha doonay laga xoolo qaatay inuu yahay raaga ogaas raagana halkaa waxay ku cadaynaysaa maansadu ama shaqada labadooda dhex martay in ay ahaayeen laba nin oo xifaltan hore u ka dhaxeeyay xifaltan hore nabar ka dhaxeeyay ahaayeen raaga markii uu qaangaaray ee uu guurdoonka noqday wuu sahan tegay gabadh buu sahan tegay inuu guursado afarta beelajogo inuu gabadh helo guursado waxa uu helay
الله صوش شيء قبل كنول ديجان كتجيجا قبل دي وها أي نقطة عبد علم حسين عبد علم حسين أولير تجيجا هاي مركي وماشي تجي قبل الله شيء والقرآن كأجي أجي وكتر وريجي قبل دي والله هذا محو كل هذا ما نص كل هذا ما نصدق كل هذا وحكم ده كله وجالس يمركو أيضا من النايو أمريكي سناحية هدو أرد بسوايو إستجاب مكلا آموسي ويسول راي المديد مياه تحي محل يقول مويد سيدي إجتك أوكله أيام هو أتاجنا هي حتى إن أدار يقولي سومور جوت حتى إن أدار يقولي سومور جوت قبل دوي كروسة الشكل أكاسك بلابنتي راجع وجاس وحوصو أرتاح دقي مركي قبل دي سبعمية غير كي قبل دو كملتي راجع وعانين دير فرطفولة أفتها وحنا كاتبين إن أي هاجي لو حلو حجوي أنا كبي حكرين markii uu soo ardaadhigay ee laga xoolo qaatay haagay ayaa waxa lagu xujeeyay oo reerkii gabadhu dhaneeyay ku xujeeyeen saddex mas'alo maxay yihiin saddexda mas'alo marka ugu xan gorayo ilig maroodi iyo faras galaalan ugu xan gorayo ilig maroodi iyo faras galaalan way adagtahay dhammaan sida lagu helo lagama helayo ugu xan gorayo dhulkii ka heli maysid ilig maroodina heli maysid oo maroodigu babada halkuu inaga tagay waan ognahay da faras galaalan nafartu iska sii dhamaanayaan deegaankeena wuu helay laba ka mid ah ugu xanti goray wuu helay xilliga ugaadhii dhulka aad bay ugu nooleen maroodigiina wuu helay ilaahay wuu fududeeyay laakiin waxa ku adkaaday inuu helo faras galaalan faraskii galaalan muddo kadib waxaa loogu sheegay deegaanka bariga Puntland eeriyada hadda dhulka Puntland loo yaqaano ayaa loogu sheegay nin oday ah oo isbaankeeda diin aabihii boqortooyadii halka markaa ka jirtay ayaa loogu sheegay markii uu tegay deegaanka farasku joogay ee loogu sheegay ninka baawar kale uu faraskii arkay raagi way ku adkaatay balba sidoo faraska uu soo wareegi lahaa ninkana uu arrintaas ugu fududaan si xujadiisa ay u furanto saddexda waxyaabada lagu xujiyay ee kaamil u noqdaan laba ka mid ah laba aqbalayo gabadha loo ka tagaysaa adigu calaa kulli xaal wixii dhaxmaray muddo kadib wuxuu ku guuleystay inuu helo faraskii galaala saddexdii waxyaabood ee lagu xujiyayna raage way u suurta galeen muddo fara badanna way ka qaadatay muddo aad fara badan ka qaadatay intii uu ku maqnaa safarka dheer uu raadinayay wixii loo diray waxaa meeshii soo galay midaan ku filayn son of the power in power le ugaas wiilwal naaga garaad wiilwal wiilkiisii faarax wiilwal ayaa gabadhii arkoodo soo ardaadhigay faarax wiilwal gabadhii reerkoodii markuu ardaadhigay arrimo fara badan kadib iyo waqti fara badan kadib waa la siiyey gabadhii wuu guursaday raage oo xujooyinkiisii wadaana reerkii buu yimi talafra ka haaday gabadh aad ardaadhigtood xoolo ka bixisay isagu hooyatay nin baawar markaa meesha kula deegaanka gabadha joogtay arrintaas waa arrin aad u adag raagi markii uu keenay xujooyinkii wixii loo diray waxay ahayd wixii loo diray ugu xangarayo faras galaalan
iyo maroodi foolkii saddexdiiba uu keenay laakiin nasiib darro gabadhii waa la guursaday oo faarax wiil waa la guursaday markii loo sheegay gabadhii aqalkii uu aqal ahaan ugu soo horeeyay wuxuu ahaa aqalkii gabadha lagu guursaday muu garanin waxba muu ogeyn arrintii gabadhii aabaheed bay u sheegtay aabaheedna raagowgaas ayuu arrinta siday ahayd ugu sheegay raagi halkaasuu gabay ka tiriyey maansada la yidhaahdo alleel dumay alleel dumay albaabadoo xidhan alleel dumay albaabadoo la xidhay uunku wada seexday unka yeedhay ogaamo rob alif banaadiiqa iidayda bixi baa libaax iman la moodaaye raggase adhaxda iyo oobtuba oo udub dhaxaadkii labadii wax lagu eegi jiray waan ka awnahaye halkaan ka leeyahay ilaah geliyuun baa oge aboodigu ma lolo garab hadduu ii ku leeyahay orod ugu holado ooglihii adhaxda beelaaye ma aarsado iliyo oofinimay iimi kaga taallaaye usha uma qaadan usha qaadan waa shaybihii arag dareeyaaye usha qaadan waa shaybihii arag dareeyaaye aroos uma galbado nimuu wadnuhu arama jiifaaye geelu markuu oomo wuu olol badnaadaaye sidii inan yar oo hooyadeed aakhira u hooyatay oo aabaheed aqal mid kale meel ilin ah seexshay hadba waxaan la urugonayaa waa ku taallada ee nin abkii ogaadayahoo aarsan baan ahaye ninkii ila biyara soo arko ooman baan ahaye ninka ayradiisii ku kale loo ayranba ninka ayradiisii mid kale loo ayran baan ahaye ninka ooradiisii rag kale loo egdaan ahaye taladii adoogii ninkaa eeday baan ahaye ninkaa ila xidhkiisii mid kale eegay baan ahaye afdhabaano aayar ninkaa aamusaan ahaye markuu maasadaa tiriyey faarax wiil waalna uu guursaday gabadhii raagi muddo kadib baa laysugu soo noqday meeshii ay gabadhu joogtay shax baa la ciyaaray shax ayaa la ciyaaray waa inoo soo koobayaa waqtiga inagu yar nimankii xifaadtugu ka dhaxaysay gabadhuna ka dhaxaysay halkaa ninkii gabadha laga guursaday siduu kumuu quusan ninka la yidhaahdo raagowgaas maalin maalmaha ka mid a ayay waxay shax wada ciyaareen ninka faarax wiil waa la yidhaahdo shaxdii markii la wada ciyaaray ayaa gabadhii iyo gabadha la dhalatay ay soo ag mareen meeshii shaxda lagu ciyaarayay raagi iyo faarax wiilwaal halkii ay shaxda ku ciyaarayeen ujeeddo fara badan baa ku jirtay shaxda maansaa la isdhaafsaday meeshiina ajal baa ka dhacday muddo yar kadib ayaa waxa uu jeclecsaday raagi gabadhii uu guursaday faarax wiilwaal ee cabban markay dhinac maraysay ayuu eegay faarax wiilwaal ayaa wuxuu shaxdii ku furay tumbul nimana oo meel fadhiya rag isku tooqaaya tol kaftamay mid baa lagu tunsiin hadalkii taagnaayay tiiraayanimaa hayso iyo faraxo kuu taabtay ninba taawadiisuu hadlaa ama tilmaamaaye tanaan degihayaa tanina ii laaban ta kaleeta een degihayaana waa tusma aan dooran kanaan degay waxaa qaatay wiilkii raagowgaas ahaa ee gabadha ay arrintu halkaa jacayl fara badani uu asiibay halkana uu kula shaxaya ninkii gabadha way u dhaxday wuxuu yidhi shil ma weydo meeshii ibliis oo ka shidayaaye waa shuqulladiisii khalqiga inuu
shideeyaay sharaf iyo wanaag male ninkay shir isla qaataane kol haddii ay showr wada dhigtaan laysla shuuroowi garaadow sharbaa ina dhex yaal madaxyo shaydaane shaxda dhigtaan shaxdaa dhigtiin keedaan ka garan inaan shisheeyownay kanaan degay faarax ayaa ku soo noqday shaxdii wuxuu yidhi jigta kabaha iyo laafiyaha jagac ka siinaayo dhexda jilicsan iyo qoorta iyo suuriyaha jiidan qaylida jilbaha loo dhigiyo jaaha wiliciisa jawaabtay ku siinayo iyo jimaca sawdkeeda jaajaadka ay sidatay iyo quruxda loo joojay hajalleeci wiilba uga dhacay talankahadeede kanaan degay laagaa ku soo noqday meeshii wuxuu yidhi sangahan jaraysan oo col buu kula sangahan jaraysan col buu kula galaa sangahan jaraysnayn col buu kula galaa jeere hadhuu buuxo waa eedi jiray wiil jabsaday xoore nimuu kibir sankada jeexayaa joogsan kari waaye hadmaa jalanqayaal jiiriyood dhaaftay jabannadiinna kanaan degay faarax baa ku soo noqday wuxuu yidhi geeyada nin lihi shaaxintee xamaro shaal dheera shuqub mayga siin waa aniga sheegin abadkeeye kanaan degay faarax baa waxaa kusoo noqday ninka la yidhaahdo taa hore waxay raagay faarax baa kusoo noqday wuxuu yidhi geeyada nin lihi qoofashee qolalka meeraysa raalli hada halkaa way isdhaafsheen wuxuu yidhi geeyada nin lihi qoofashee qolalka meexaysa qaydlahaan fuuli jiray shay qodkaan dhaafshay qiyaasliin ninkii ugu tago qooma maaxiigiiyo kanaan degay taa waxaa yidhi faarax wilwaal raagaa ku soo noqdo wuxuu yidhi geeyada rag lihi qoofashee qarinta meeraysa ee quruxda badan ee farduhu qiimo la ekaynin quruxda badan ee farduhu qiimo la ekaynin ee qalabka saaran dhan yahay qoorta iyo duudka ee loo qushuuco ee khalqiga lagala qoofayo ee qaalin loogu doonayay laysla quuraynin ma la qoonsan aadkaba hadday fuulmo noo qabato waxaa ku soo noqday faare wuxuu yidhi qumba subaga oo meel qutamo oo rag wada quuto qooraansigaa kuugu daran uudadna cuni doonin kanaan degay qumba subaga oo meel qutama oo ragna wada quuto oo wuxuu yidhi raage qumba subaga oo meel qutama oo rag wada quuto oo warmana lagu qoonsaday hadday dani noo qabatay kanaan degay warmana lagu qoonsaday hadday dani noo qabatay kanaan degay weli shaxdi baa la ciyaarayaa faarax baa ku soo noqday wuxuu yidhi faska qaatumeed baan ahayo filin aan leecayne maya raayotan wuxuu yidhi qumba subaga oo meel qutamo oo rag wada quuto oo warmana lagu qoonsaday hadday dani noo qabatay faarax baa ku soo noqdayo wuxuu yidhi faska qaatumeed baan ahiyo fadhin aan la liicayne furaashada carbeed baan ihiyo wiil fallaayde ee rag u kala fariidsanay ninkaan faaraxaan ahay kanaan degay meeshii waa warmaa laysla dhacayaa hubbaa laysu adeegsanayaa wuxuu yidhi faska qaatumeed waa waxay fariimo qaadayne fadhinkii aan leecayn mirbaa lagu fajaystaaye furayaasha carbeed waa wuxuu dumar fadhiistaaye aniguna ninkaa faaraxaan fuul isleeyahay kanaan degay
وحيري فارح نين أدوين لو كان دلي قرنا كوشكتين قلب كده قال كريستون قوفين ولي جيبه الله قورن جسنا عدكو عدكو قوسي عدكو قوديني الله كتقرأ دير حدين لا اسكو قاقادو ما لا قوسن آد كما حدو قبضنا كاقادي waxaa ku soo noqday raago uga soo wuxuu yiri nin adoogii dhow qaarin dalay qolana ka liidan qaarna ee bihiisiyo qaatay salabkiisa oo loo kumayn dirir hadii la isku qabaxsiiyo oo waliba qaaliban hadii qooman la ismaago ma la qoosan aad kaba haduu rubada ka qaado waa halka uu ku geeriyooday Faarax Wilwaan انت سنقول سوق بقبلية ان شاء الله برنامج كله وينوصل سعونية هذا بدو ما ستين دمان تبا